saaxiibayaal waa qaybtii labaad ee taariikh nololeedkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan idinku la wadaagi doono halkan aniguna waa libaax barqiye. haddaba aynu kasii ambaqaadno halkii ay noo joogtay waxyaabihii ugu waaweynaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa in ay dacwadii muranka ay gelisay badda Soomaaliya Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo loo soo gaabiyo ICJ 13 bishii July 2014 dowladda Soomaaliya si rasmi ah dacwadaasi ugu gudbisay maxkamadda ICJ haddaba sanada kadib 12 bishii Oktoobar ee sanadkii 2021 ayay garsoorayaasha maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague ee wadanka Netherlands ku dhawaaqday go'aankii kiiska badda waxaana loo xukumay Soomaaliya. intii haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu talada hayay laga soo bilaabo 2012 ilaa 2017 ra'iisul wasaarayaashii uu la soo shaqeeyay xilliga waxaa ka mid ahaa Cabdi Faarax Shirdoon oo jagada loo magacaabay 17 Oktoobar 2012 isagoo hayay ilaa 21 Oktoobar 2013 mar kale waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Wali Sheekh Axmed 21 Disembar 2013 isagoo hayay 24 Disembar 2014 iyadoo mar kale haddana loo magacaabay jagada ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake 24 Disembar 2014 isagoo hayay ilaa 8 February ilaa 2017 madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo xileedkiisii labaad waxa uu qabtay 15 bishii May 2022 waxaanu ra'iisul wasaare u doortay Sheekh Cabdi Barre isagoo magacaabay 15 Juun 2022 waxaa la ansixiyay 25 Juun 2022 waxaa kale oo ka mid ahaa waxyaabihii uu qabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo xileedkiisii 2012 ilaa 2017 aqoonsigii Mareykanka iyo beesha caalamka mar kale aqoonsadeen inay Soomaaliya tahay dal madax bannaan oo ay u dhameystiran yihiin haykalkii looga baahnaa ee dowladnimo. haddaba labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu dhidibada u aasay wasaaradii gaashaandhigga xerada tababarka ee Nacnac iyo golaha amniga ee qaranka Soomaaliyeed. barnaamijkii level detention program oo xilligaas la hirgeliyay waxaa isku soo dhiibay 70 sarkaal oo ay ku jireen xasan sheekh daahir iyo itam waxaana muqdisho laga qaaday 60 isbaaro oo taalay waqtiga. haddaba 3 sano ilaa 2 sano ee ugu horeysay dowladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay sufaysay gobollo badan iyo magaalooyin ay ka mid ahaayeen Galmudug, Ceelbuur, Wabxo, Shabeellaha Dhexe, Jowhar, Haday, Balcad, Hiiraan, Buulaburde, Maxaas, Jallaqsi, Jubbaland iyo meelo kale. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo wax ka qabtay waqtigaasi bangigii dhexe ee Soomaaliya isagoo sameeyay miisaaniyadii ugu horeysay burburkii kadib oo dooraskii maaliyadeed iyada oo lagu qiyaasay 114,355,852 dollar. haddaba madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xafiiska ku soo laabtay bishii May 2022 ayaa muddadii uu xilka hayay sameeyay dadaalo muhiim ah oo la xiriira horumarinta amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda. haddaba waxqabadkiisa waxaa lagu cabiri karaa hadda sida tan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu daahfuray ololaha ballaarinta ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. dagaalkan ayaa xoogga lagu saaray gobolada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ahaa meelaha la xoreeyay deegaano badan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa kale oo uu ku guuleystay taageero caalami ah oo dhaqaale iyo qalab military ah oo loogu talagalay dagaalka. madaxweynuhu waxa uu xoogga saaray dib u dhiska hay'adaha dawladda si loo xaqiijiyo dawlad wanaaga. waxa kale oo dib loo bilaabay howlaha lagu dhameystirayo dastuurka ku meel gaarka ah si Soomaaliya u yeelato dastuur rasmi ah. madaxweynaha ayaa ka shaqeeyay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku tallaabsaday guulo dhaqaale oo muhiim ah. wuxuu sii waday barnaamijkii dayn cafinta oo ay taageerayeen hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan IMF iyo Bangiga Adduunka. waxa kale oo uu hagaajiyay ururinta cashuuraha iyo dakhliga gudaha si loo maalgeliyo adeegyada bulshada. kadib waxaa bilaabmay mashaariico lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo dekedaha. waxa uu saxeexay heshiisyo iskaashi oo dhaqaale, amni iyo ganacsi ah. Soomaaliya ayaa kaalin firfircoon ka qaadatay ciyaarta arrimaha nabadgelyada iyo isdhexgalka dhaqaale ee adduunka. waxaa lagu guuleystay in la xalliyo khilaafaadyo diblomaasiyadeed oo horey u jiray. madaxweynuhu waxa uu xoogga saaray wax ka qabashada baahiyaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka ee dalka. haddaba inkasta oo waxqabadyo badan la sameeyey, haddana waxaa weli jira caqabado ay ka mid yihiin xasilinta dalka oo dhan iyo dhammaystirka xasiloonida siyaasadeed, hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod, dib u heshiisiinta siyaasadeed oo ka dhex dhalata dowlad goboleedyada. inkasta oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadaal ku bixiyey sidii Soomaaliya uga bixi lahayd xaaladan adag ee siyaasadeed iyo amni ee ay ku jirto, inkasta oo uu qorsheynayo in wax badan laga qabto inta ka hartay muddo xileedkiisa. saaxiibayaal, waxaynu halkaa ku soo afmeeraynaa taariikh nololeedkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweynihii 8aad ahna madaxweynaha 10aad ee hadda talada haya.